goobtu aad ayay u mashquul badan tahay waa madal ay goobjoog ka yihiin ku dhowaad 30 sharikadood oo shaqaale doona iyo in ka badan 3,000 oo dhalinyaro dhowaan jaamacadaha dhammaystay ah shaqana raadinaya waxaa soo qabanqaabiyey mu'asasada Fursad Fund oo isku xiraysay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha saf dheer ayaa lagu jiraa waxaan qiyaasaynaa haddii ugu yaraato ilaa 400-500 oo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho leh inay halkan kala tegi doonaan ballanqaad shaqo helis ah kadib markii imtixaan laga qaado oo hay'adda shaqada ku leh ay qaadato ayada ay ka dhaxulato waxaan qiyaasaynaa 500 ilaa 1,000 dhalinyaro ah in labada maalmood gudahood ay heli doonaan ka sokow shaqo raadinta gudbinta iyo qabashada waraaqaha shaqadoonka waxaa jira hadallo bartilmaameedsanayay dhalinyarada shaqada raadinaysay oo talo iyo tusaalaynba si ay ugu guulaystaan marxaladan cusub iyo hawshan ay lugaha la sii gelayaan marka waxaan dhiirigelinaynaa dhinaca ah jaamici haddaad tahay yeelo xirfad kale oo aad maaragtay kaga baxsan karto marxaladaha kala duwan nolosha ku soo maraya marka qofkii bini'aadamkana sideeda waxaa fiican inuu xirfad u gaar ah u yeesho waxaan sidoo kale halla qabsi iska noqday ama dhalinyarada shaqooyinka qaar markii howlaha lagu jiro ama shaqooyinka lagu jiro ama qofka mas'uuliyadda inta loo dhiibo uu si sahlan uu ku dhaho micno ma lahan wixii markay hallaabaan markaa weydiisadna uu ku dhaho caadi waayo heer qofkaas uu gaaro haddii shaqada uu waayo inuu dhaho micno ma laha shaqadan haddaan ka tago caadi waayo shaqo kalaan helaya marka kuwaasaan aad u dhiirigelinay inuu maaragtay noloshooda ay u adeegsadeen nolosha socialka ah ay u adeegsadeen u adeegsan ku tabiqin nolosha ama shaqada xilliga ay ku jiraan waxaa la filayaa in sharikadaha gudaha ee shaqaalaha doonaya ee bandhigan dhinaca shaqada ah ka qaybgalayay ay maalmaha iyo toddobaadyada soo socda qaataan shaqaale lagu qiyaasay 500 ilaa 1,000 ruux oo maanta waraaqahooda la qabtay waxaa fursad noo ahayd inaanu aragno dad jaamacado ka soo qalinjabiyey oo dhalinyaro ah oo aad iyo aad motivated u ah ama aad niyaddooda u dhisan tahay una baahan inay waddanka fursado ka helaan annaga oo rabna baahidaas inaynu qaybteenna ka daboolno dahabshiil group ahaan ayaan uga faa'iidaysanay barnaamijkan CV aad u tiro badanna runtii waana soo gaareen oo aan rabno inaanu baahidanada xagga shaqo ka daboolno isla markaana aan doonayno inaanu yareyno baahida shaqo la'aanta xoogga leh ee waddanka ka jirto inaynu qaybteenna ama kaalinteenna aanu ka buuxino waddanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalo madaxda waxaa ka jira shaqo la'aan xoog leh waxaana taasi tusaale ugu filan tirada faraha badan leh ee shaqadoonka ah ee xilligan xadidan isku diiwaangelisay in shaqo loo baadigoobo tusaaleahaan hadda annaga markaan soo shaac bixinay inaan job fair qabanayno waxay ahayd bil ka hor hal isbuuc bes baan advertisement samaynay inuu job fairka soo socdo halkaas isbuuc waxaa soo register gareeyay 2,000 dhalinyaro oo shaqadoona hadda 5 biri ka hor intoona dhicin baan haddana advertisement bilaabnay inay jirto job fairka 1,700 kale soo register gareeyay so baahi badan baa ka jirta dhalinyarada oo doonaya inay shaqo helaan inkastoo dhalinyaradii waraaqahooda gudbiyey si loo shaqaaleeyo aanay wada hubin in ay helayaan shaqadii ay rabeen haddana dhammaantood waxaa wejiyadooda ka muuqatay farxad dheeraada waxaanay u riyaaqsanaayeen habkan shaqada loogu raadinayo oo kuwii hore ka beddelan magacaygu waa Samsa Cabdullaahi Cumar kana mid ah ardayda sanadkan dhameeyay jaamacadda ku yaal magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay maanta maalinta labaad ee barnaamijkan aan ka soo qayb galo barnaamijkan ee abaabuleen Fursad Fund barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad muhiim ah oo sanado badan aan raadinaynay misna dalka ka maqnaa shirkado badan ka soo qayb galay oo fursadooda soo bandhigeen dad badan CV ay keensadeen aniga aan ka mid ahay dadkaas keensaday CV-yadooda maanta waxaana ham weyn aan ka qabnaa inaan fursadahaas ka faa'iideysano oo shirkadahaas ay dhimaan shaqo la'aanta dhalinyarada haysta magacaygu waa Cabdimaalik Ibraahim Cabdulle barnaamijkan maanta ka soo qayb galay bandhiga shaqada oo lagu qabanayo Hotel City Plus barnaamij fiican oo arka oo qabanayeen hay'ado inta badan ay u badan yihiin hay'ado private ah maanta in badan dad badan shalay ka soo qayb gal laakiin aniga maanta ayaa iko ahayd CV-gayga waa dhiibtay waxaana filaa insha Allah inaa booskii macnaha filay inaa ka soo baxo heli doono shaqo awood waa tallaabo dhiirigelin leh oo loo qaaday dhinaca horumarka waxaanay horseedaysaa in Soomaaliya oo muddooyinka dambe shaqooyinka si hoose lagu bixinayay haatan dibadda loo soo saaro waxaanay dhiirigelin u noqonaysaa dhalinta waxbaratay ee haatan shaqadoonka Jacfar Kukay VOA Muqdisho